Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada channelka Samiir Ogaal. Jasiiradan la yaabka leh waa mid ka mid ah meelaha ugu khatarta badan dunidan aynu ku noolnahay, haddii aanayba ahayn meesha ugu khatarta badan. Jasiiradii Masaska ama Ilha da Quimanda sida ay u yaqaaniin dadka reer Baraasiil waa mid hurdo la'aan ku ridaysa qof kasta oo cagdhiga. Kumanaan ka mid ah masaska ugu halista badan caalamka ayaa taaka kasta oo jasiiradan ka mid ah xamaaranaya, waana midda keentay in dowladda Baraasiil mamnuuc ka dhigto booqashada jasiiradan. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeenna maanta waxaan idinkula wadaagi doonaa xaqiiqooyin iyo sheekooyin ku saabsan jasiiradan argagaxa leh. Balse intaynaan u guda gelin barnaamijka, fadlan adiga oo mahadsan muuqaalka like saar, sababtoo ah waxay ka caawin doontaa inuu dad badan sii gaaro. Dad badan ayaa aaminsan in kooxo burcadbadeed ah ay masaskan geeyeen jasiiradda. Burcadbadeedda oo ahaa kuwa qarniyadii hore dadka ka dhici jiray alaabada qaaliga ah sida dahabka iyo dhaymanka, ayaa dad badan rumaysan yihiin inay ka dambeeyeen arrintan. Waxaana la sheegaa inay jasiiradan ku qarsadeen macdano qaali ah, intaa kadibna ay keeneen kumanaan masas ah si ay ugu ilaaliyaan alaabtooda. Balse dhinaca kale waxaa jira arrimo beeninaya aragtida ah inay burcadbadeed ka dambeyso masaskan, sida in dadka qaar isweydiinayaan sidii ay burcaddu markii dambe uga soo qaateen macdanihii, maadaama oo iyagaba cuni karaan masasku. Hal mitir kasta oo ka mid ah jasiiradan waxa ku nool 1 ilaa 6 mas. Tan ayaa ka dhigan in qofka taga jasiiradan uu 3 tallaabo oo kasta dhimasho khatar ugu jiro. Sidoo kale saynisyahano tagay jasiiradan ayaa sheegay in meelaha qaar aadan helayn meel aad cagta dhigto, sababtoo ah waxa xamaaranaya mid ka mid ah masaska. Dhinaca kale, masaskan waxa ku jira kuwa suntoodu 5 jeer ka halis badan tahay noocyada kale, isla markaana aan laga helin qaybaha kale ee dunida. Balse nasiib wanaag badanaa masaska ku nool jasiiradan ma aha kuwa dabaalan kara, taas oo ka dhigan inaysan soo dhaafi karin jasiiradda. Laakiin su'aasha aad isweydiinayso ayaa ah, haddaba sidee ku tageen jasiiradda? Haddaba sida la aaminsan yahay 11,000 oo sano ka hor, jasiiradan waxa ay ahayd mid ku xiriirsan dhulka kale ee Baraasiil, balse muddo kadib dhulkii isku xiri jiray jasiiradan iyo Baraasiil oo baraf ahaa ayaa dhalaalay. Waxaa jiray qoys ku noolaa jasiiradan. Sida la sheego sanadii 1900 waxaa jiray qoys ku noolaa jasiiradan, waxaana caddayn u ah guriga ka dhisan. Waxaana gurigan ku noolaa nin ilaaliya guriga iyo qoyskiisii. Haddaba sida la soo wariyay, qoyskan ayaa habeenada ka mid ah hurdada ka kacay. Waxa ayna arkeen dhammaan daaqadaha guriga oo masas ka soo galeen. Intaa kadibna naxdintii ayay bannaanka u carareen, balse nasiib xumo mar dambe ayaa meydkoodii laga helay kaymaha jasiiradda. Sunta masaskan waa laga faa'iidaystaa. Marka laga yimaado in dowladda Baraasiil ka mamnuucday dadka inay tagaan jasiiradan, waxaa jira koox saynisyahano ah oo loo tababaray inay sunta ka soo qaadaan masaskan. Waxaana intaa kadib sunta laga sameeyaa dawooyin waxtar u leh aadanaha. Waxaana ka mid ah dawooyinka lagu daaweeyo cudurrada wadnaha ku dhaca, iyo sidoo kale dawooyinka lagu daaweeyo cudurrada ku dhaca habdhiska wareegga dhiigga. Nin kalluumayste ah ayaa ku khaldamay jasiiradan. Sida la soo wariyo, waxaa jirta sheeko kale oo ku saabsan nin kalluumayste ah, kaas oo doonidiisa ka xumaatay kadibna kula xiratay jasiiradan. Ugu horreyntii, kalluumaystuhu waxa uu la yaabanaa jasiiradan degan oo quruxda badan, sidoo kalena waxa uu ku faraxsanaa nasiibkiisa. Intaa kadibna waxa uu gudaha u galay jasiiraddii, waxa uuna bilaabay inuu cuno geedaha mooska oo aad uga baxa jasiiradan. Balse waxaa isla markiiba lugta ka qaniinay mas aad u halis ah. Lama hubo sida wax u dhaceen, laakiin markii la helay waxa uu ahaa mid ilaa 100 jeer masasku qaniineen.